wasiirka amniga maamulka galmudug Axmed Macalin Fiiq ayaa maanta la wareegay qaar ka mid ah gaadiid dagaal iyo maleeshiyaadkii saarnaa kuwaasi oo ku sugnaa magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Goobta lagu wareejiyay gaadiidkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa waxgarad wasiiro xildhibaano iyo siyaasiyiin ka tirsan maamulka Galmudug. Nabadoon Tahliil Maxamed Aadan oo ku hadlayay magaca beesha wareejisay maleeshiyaadkan iyo gaadiidkooda ayaa ugu horreyn goobta ka hadlay. meeshan maanta waxaan u taaganahay ciidamadan iyo gaadiidka beesha Cadaad ka soo jeeda inaan ku wareejino wasiirka amniga Galmudug inaan ku wareejinaan u taaganahay waa ku wasiirka soo dhawow gaadiidkan ciidamadan munaasabadan waa waxaad xaq u leedihiin waa waxa dalka iyo maaragtay dadkaba aad maaragtay munaasabadii aad ugu istaagteen oo madaxda ugu ahaydeen sidoo u sheegayba mudanuhu waxaan rabnaa wixii ka dambeeyana waan ugu soo laaban doontaan kuwaana waa horodhaci si gaar ah waa beesha Maxamed Cabdi waa tirsi uu sheegay mudanuhu waa 120 lix weey gaadiidkuna wasiir ku soo dhawow. sidoo kale waxa goobta ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug naftooda u hibeeyay Galmudug ee halka taagan mudana wasiir ma ahan qaybtii ugu horeysay ee beeshan ay wareejiso ciidan intaan aan ka yareynaan hadda ka horgeynay meesha la yiraahdo Karoone meeshii ku jiraan intaana hadda aan geey doonaa dadka reer Galmudug waxaan leenahay qoryaha aan iska xareyno haddiina la xamanayay waa kan ciidankii beeshan ku soo dhawow kuwa kalena waa soo wadnaa ma rabno inaan noqono kuwii ugu dambeeyay kuwii ugu horeeyana waan ahayn kuwa ugu dambeeyana waan noqon doonaa kuwa u dhaxeeyana waan nahay wasiir ciidankan iyo gaadiidkan ku soo dhawow ku siin mayno adiga kugu milkin mayno laakiin aad ugu shaqaysto deegaanka iyo dadka amnigooda gudaha iyo midka dabadda in lagu difaacaan kugu wareejinaynaa waxaan kala shaqaynaynaa waxa laaliyo wixii xageega iyo anaga aad nooga baahan tahay ciidanku intaan ma ahan gaadiidkuna intaan ma ahan reer Cadaado gaadiidka iyo ciidanka ku dhiman oo ay soo wadaan oo ka badan yihiin wasiirka marka waxaan ku soo dhaweynaynaa sida loo sheegay ciidankan halka taagan dabadeedna waxaan filaynaa intaan iyo in ka badan inaan kugu wareejin doono. wasiirka wasaaradda amniga gudaha Axmed Macalin Fiiq oo goobta kula hadlay ciidamadan ay maanta la wareegeen ayaa sheegay inay ka mid noqon doonaan ciidamada daraawiishta ayna heli doonaan tababar ciidan iyo xuquuqdooda wixii maanta ka dambeeya. runtii sharaf weyn bay noo tahay maantay inaan joogno duleedka Cadaado oo aan iska raacayno annagoo u soconna xerada tababarka ciidamada daraawiishta ee Karoone gaadiidkan odayaasha iyo xildhibaanada iyo akhyaarta beesha Maxamed Cabdi ay ku wareejiyeen dawladda Galmudug mas'uuliyadeeda iyo ciidankaba inaan u soconno tallaabadii koowaad oo wareejinta ku xigtay waxay tahay tababarka ciidanka in ciidan ahaan la isku tababaro oo xeradaasna nasiib loo yeeshay in deegaankan xero u dhow ay jirto xeradaas aan tagno ciidamo nooga horeeyay sida wasiirkuba sheegay ayaan ugu tagaynaa oo muddo dhowr toddobaad 2 toddobaad 3 toddobaad tababar uga socday oo aad taqaaneen oo halkan deegaankan ka tirsanaa iyo deegaamada kale oo hareerahana kuwa kalena waa soo socdaan odayaashu sida sheegeen meelo kalena waa laga imaanaya waan rajaynaynaa dhabadii inay ka mid tahay in meeshaas la isugu yimaado ay noqoto xero nabadeed ma ahan kaliya xero tababar xero nabadeed xero dib u heshiisiin xero walaalayn xero darisayn xero ciidamayn waxaas oo dhan way ayay isugu jirtaa hawsha Galmudug ka socota oo madaxweynuhu nagu hogaaminayo ma ahan kaliya tababar iyo ciidamayn kaliya dib u heshiisiin way ku jirtaa raggii dhalinyarada ahaa ee duurka isku haleeli jiray ee ku dagaalami jiray waxay isugu tagayaan hal baabuurna wada fuulayaan hal ciidanna waa ka watarsan yihiin halkaas waxa ku soo gabagaboobaysa dadkii naga dhiman jiray oo tirada badnaa dadkii naga dhaawacmi jiray dadkii maaragtay dhaqaalihii tirada badnaa oo ku bixi jiray dagaalkaas
iyo maaragtay khilaafyadii ka jiray deegaamadan waa noo soo gabagaboobayaan dhallinyaradeenna waxay helayaan mustaqbal ay ku nastaan mustaqbal ay ku shaqaale ku noqdaan mustaqbal ay roorahooda ku dhaqdaan mustaqbal walaalkoodii ay u diyaarinayeen maalin kasta inuu dhinto uu garab joogo intuu dunida ku nool yahay mustaqbal ka wanaagsan runtii kii hore ayaan rajaynaynaa marka runtii sharaf iyo karaamay tahay ciidamada daraawiishta waa sheegna dhowr jeer 3 shaqo ugu muhiimsan shaqooyinkooda gowsambeedka lagu qabsado shaqada koowaad waxay tahay markay tababartaan kadib horta koow tababarka markay dhammaado xuquuq bay helayaan saraakiishuna dalacaad bay helayaan ragga saraakiishana dalacaad bay helayaan askartuna xuquuqdooda helayaan dabcan dee saraakiilnimo ayaguna isku soo diyaarinayaan shaqada koowaad waxay tahay xuduudaha galmudug ay leedahay amnigeeda inay sugaan wasaaradda amniga gudaha ee dowlad goboleedka galmudug ayaa horay deegaano ka tirsan gobolka mudug iyo galgaduud waxa ay kula wareegtay maleeshiyadii gaadiid dagaal liibaan cabdiciise TV-ga Shabeelle magaalada Cadaado.